qofka halkan ka muuqda waa Sharma Boy waxaad u taqaanaa inuu yahay boqorka raabka ama fanaanka hadda loogu jecel yahay balse war uu hadda naga soo gaaray ayaa waxay sheegayaan in Sharma Boy guud ahaanba uu fanka iskaga soo gabagabeeyay 2023 waliba sidoo carabka ku dhuftay inuu haddadanba uu maalmo yar kadib uu ka bixi doono fanka haddaba daawade baladu komitiga ku qor Sharma Boy maxaa ku kalifay inuu fanka sanadkan loogu jecel yahay uu guud ahaanba fanka soo gabagabeeyo ma waxa jirta cid fanka ku kaliftay inuu ka baxo mise isaga ayaa naftiisa la jeclaaday inuu dhanka wanaagga u riixo bal arintaas saxaabta qaaliga bal waxaan u dayn doonaa Sharma Boy oo hadda war degdeg naga soo gaaray bartii YouTube-kiisana ku soo qoray igu garab gala wanaagga iguna taageera sida walba igu taageereyseen dhanka xumaanta haddaba Soomaalideenu ma tahay dadka wanaag jecel mise waa dad xumaanta u guntada bal arintaas saxaabta qaaliga intaan ugu dagalin waxaan ka codsanayna in baad bartaan TikTok kulena aad follow soo tiraado sidoo kalena aad love ka saarto wixii fikir iyo oraahna commentigaas noogu reebto marka ugu horeysa balana wadaaga Sharma Boy sababta ku kaliftay inuu ka baxo fanka Sharma ka soo dhaw barnaamijka ina faraha isaga qaad saaxiibadu Ilaahay subhanahu wa ta'ala nafta waan gartay waxa kaliya aan ku hanweynaha waxaan la arkaa ano barnaamijkan banaanka ka taagan ano amigayga ma aan wallahi baan ku mashay inuu ku sii jiraa waliba waxaan isku soo wada duuduubo Sharma Boy waxa uu kaga dhawaajiyay in uu guud ahaanba barnaamijkan halkaas ku soo afxiri doono la maqli doonina Sharma Boy baa sida yiri Sharma Boy baa halka maray haddaba daawada adigu bal aan eegno ma tahay qof wanaag jecel bal maanta aan aragno in dadkeenu ay wanaag aad u jecel yihiin Sharma Boy maxaad ku talin lahayd maxaad ku taageeraysaa ma dhanka wanaagga uu qaatay iyo toobada uu keenay isagoo awalba aan gaal ahayn muhiimadu haddaba waxay tahay haddii aad Sharma Boy ku taageerayso inuu fanka ka baxo bilis dhanka komitiga hoos noogu soo qor keep going farxadaadu waa farxadayada haddii aad jeceshahay inuu fanka ku sii jirana dhanka loofta noo taabo aad baad mahadsan tahay sidoo kale Sharma Boy waxa uu kaga dhawaajiyay in maxay hayday ay jiraan dad soo aflagaadeeyay waliba hooyooyinkana wax ka tabanayo leeyahay hooyo weyn baa soo cayday sidoo kale sheekh baa culimadana uu ka tirsanayo in culimaduna cayday bal warkaas asxaabta qaariga maxaa ka jira bal markale waa kan Sharma Boy ila daawada dad in warshiiq soo caay waa arke tariif soo caynay waa arke maamo weyn oo waayil caynayso waa arke ilmo yariisi ka baa waa arke wax aan inta barnaamijka ku jiray aan arkin ma lahan ma garatay waxaas ma dhacaan waa ogahay laakiin ma warrabo Sharma Boy haddaba ma oran karnaa saxaabta qaaliga waxa halkan hanjabaado uga imanaya culimada iyo waliba dadka waayeelka ah sidoo isagu hadalka ka dhawaajiyay hooyooyin baa jiray soo aflagaadeen sidoo kale culimo ayaa aniga soo cay waa sidoo Sharma ka hadalka u dhigay haddaba waqti xaadirkan Sharma Boy isagoo ku sugan wadanka Mareykanka jawi degan ku jira maxaa sabab inuu fanka ka baxado oran kartaa baladu dhanka komitiga noogu qor haddii aad ku taageersataa Sharma Boy inuu guud ahaanba fanka iskaga fadhiisano hadda koor ku taageeraysa xumaanta maanta waxaan ku leeyahay saxaabta qaaliga wanaagga ku taageero komitiga waxaad ku qortaa Sharma Boy wada wanaagsan baan ku rajaynaa haddii aad jeceshahay inuu fanka ku sii jirana waa dookhaaga dhanka loofta noo taabo adariskana la sii wada asxaabta qaaliga haddaba lacala haddii bay dhacdaba daawadayaasheeda qaaligow haddii ayba dhacdo inuu Sharma Boy guud ahaanba fanka iskaga fadhiisto heesaa lagu xasuusan doono waxa ka mid ah heesta macawista iga dhacday ma fahmin warkooda heestaasi waxay noqotay heestii loogu hadalhaynta badnaa dhinaca baraha bulshada gaar ahaan barta TikTok Sharma Boy waa mucjisada fanka Soomaaliyeed Sharma Boy hal sano uu fanka ku jiray waxa uu noqday guud ahaanba wiil aad iyo aad loo jecel yahay haddii aroosyo badan tahay saaxib hadda kiciya sidoo kalena si dhib yar la ku tagay isagoo jiraan fanaaniin Korean Mareykanka arkin oo hadda Mareykanka joogo sidoo kale Sharma Boy waxa kamid ah heesiisa loogu xasuusan doono waa haddii ay dhacdo fanka ka baxee heestan daawada haddii aad jeceshahay Sharma Boy inuu fanka ka baxo komitiga nagula wadaag sidoo kale